Bismillahi Raxmaani Raxiim. Cashirkan waxaan ku baranaynaa device manager-ka. Device manager-ka muxuu yahay, muxuu qabtaa, qaabkee loo isticmaalaa ayaan ku baranaynaa. Device manager-ka waa qayb ka mid ah kombiyuutarka, waxaana lagu cilad bixiyaa ciladaha qaar oo kale, sida in codkii ama codka hadduu kuu shaqeyn waayo oo kale, internetka sometimes hadduu shaqeyn waayo oo kale waa lagu cilad bixiyaa isagana, keyboard-kii hadduu kuu shaqeyn waayo. Waxyaabo badan ayaa lagu cilad bixiyaa device manager-ka. Waa door muhiim ayuu kombiyuutarka qaataa. Markaan ku dhahayo waa lagu cilad bixiyaa, wax la yiraahdo waxaa lumaya drivers. Driverska lagu sheegayna waxa waaye waa hardware-kii iyo software-kii kombiyuutarka uu ka koobnaa, waxyaabihii isfahansiinaya isku xiraya waaye. Marka haddii driverska uu kaa maqan yahay, codka driverskiisa hadduu kaa maqan yahay oo kale, codku ma shaqeynayo. Internetka adapter-ka oo kale, network adapter-ka oo kale hadduu kuu shaqeyn waayo oo kale, drivers ayaa kaa maqan sometimes oo qayb ayuu ka noqon karaa. Keyboard-kii oo kale. Waxyaabo badan ayaa markaa lagu cilad bixiyaa. Haddii aan isla fiirino kale, waxaan tegaynaa search bar-ka, waxaan ku qoraynaa device waa kaas kor ayuu nooga soo baxay device manager ayaa la yiraahdaa. Click ayaan ku siinaynaa marka. Marka waa kana. Fiiri kaamiradii, kombiyuutarkii, batarigii, bluetooth-kii, all hardware-kii oo kombiyuutarka lahaa halkan ayuu nooga soo saarayaa. Marka maxaa la dhahayay, haddii codka uu naga maqan yahay oo kale, waxaan sameynaynaa double click ayaan ku sameynaynaa. Driverska lagu sheego waa real togan oo kale ayaa calaamad yellow ah inta kugu soo qormayso markuu kaa maqan yahay. Marka printer-ka hadduu kaa maqan yahay oo printer markaa kombiyuutarkii aad ku xirto oo kale, hadduu kuu shaqeyn waayo oo kale, drivers ayaa kaa maqan. Network-ga waa kana asagana. Network adapter-ka oo kale hadduu network cilada internet sometimes ku shaqeyn waa dhici kartaa. Marka inta badan waxay ciladaas ay timaadaa markii Windows cusub lagu shubo. Markaas ayaa waxaa u baahanaysaa in driverska aad soo dejiso. Laba siyaabood ayaa loo soo dejiyaa. In website-ka kombiyuutarka uu leeyahay sida HP haddaa haysato oo kale, laptop HP haddaa haysato oo kale, ama Dell haddaa haysato oo kale, website-kooda ayaa tegeysaa. Dell website-kooda ayaa tegeysaa ama HP website-kooda ayaa tegeysaa. Qaybta support-ka ayaa tegeysaa. Qaybta driverska ayaa sii tegeysaa. Kadib ayaad ka soo dejisanaysaa. Marka qaabkaas waa loo sameeyaa. Qaabka kaloo loo sameeyo waxay tahay in aad device manager-ka imaato oo markaas aad right click ku sameyso driver-ka kaa maqnaa, kadib aad update dhahdo. Marka update markaa dhahdo, waxaa leedahay search automatically for drivers ayaa leedahay. Marka waa kana. Marka wuu raadinaa. Hadda aniga wuu igu jiraa. Ani hadda wuu igu jiraa, kuma xirmaayo, illood wuu igu jiraa. Laakiin hadduu kaa maqan yahay oo kale, website-kooda ayuu ku xirmayaa. Waana inaad internet haysatid. Haddaadan internet haysanin kuma shaqeynayo. Marka device manager-ka waa door muhiim ayuu ka qaataa kombiyuutarka. Waxyaabaha kombiyuutarka lagu cilad bixiyo ayuu ka mid yahay. Marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi